بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيكتوريا سامبر حقاياش ملبا شوكتين شيلك سعاد وان سلامية وحربا تاريخ دينا برتين وحربا إن انكسو هدلو كورميركي مدعوينها سومالي لان His Excellency موسى بيحي وكتغي وزارة ورفافينت marka dhalinyarada waxaan doonayaa inaan ku darsado madaxweynaha oo taariikhda wax ka tilmaamo wax ka sheego si fiican dhageysta horto waxa ugu horeeya rabaa inaan nii sheego hamiga nolol ee Soomaaliland iyo hankii qaranka way rumowday horto hamiga uu shacabku leeyahay waa noloshu waa waxbarasho waa shaqo abuur waa caafimaad waa wax soo saar wax walba laakiin 75% uu horeeyay hamiga nolol ee Soomaaliland iyo hankii qaranka wuu rumoobay horto Soomaaliland waa qaran jira dowladnimo hanaanka dalka Soomaaliland qaatay waa hantida shacabka in la ilaasho iyo horumar labada u qaad maanta aad baan ugu farxay waxaan rabaa inaan ka soo hadlo kormeerkii uu ku tagay madaxweynaha Soomaaliland His Excellency Muuse Biixi Minister of Information wasaaradda warfaafinta waxaan doonayaa marka halkuu taagnaa waxay ahayd Radio Hargeysa waa cudada ugu weyn ee ku hadasho af Soomaali marka waxaan rabaa dhalinyaradu inaan wax baro waxaan marka ugu horeysay Soomaaliya idaacad af Soomaali ku hadasho la hirgeliyay Radio Hargeysa ugu horeyntii 1941 waxa Radio Hargeysa asaasay dowladda UK oo ay Somaliland British Protector ahead weligeed Somaliland xor ahayn ay dowlad heshiis la gashay maxmiya British Protector ayaa 1941 Radio Hargeysa furay Radio Hargeysa waxaa la dumiyay 1988 dowladdii kala Italiya ninkii mujrimka ah Holocaust ka sameeyay Hargeysa ka sameeyay Siyaad Barre ayaa burburiyay oo diidanaa taariikhdu inay harto waxaa dib u kiciyay dowladda Somaliland 1991 markay Somaliland xornimadeeda dib ula soo noqotay marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa 1941 ilaa maanta we are talking about 77 year of history 77 sano oo taariikhan ka hadlayna oo wax Soomaali leh jirin markii xorriyadda qaadateen wixii ugu horeeyay la dhisay Radio Hargeysa waxaa dhammaan laga dhageystaa Radio Hargeysa bariga Afrika iyo wadamada bariga dhexe waxaa kaloo waxay Radio Hargeysa ku hadashaa 4 luqadood Somali, English, Amharic iyo Arabic marka Somaliland we have an history waxaanu leenahay culture from the information waxaanu nahay dad weligooda free speech diidin xorriyadda u ogolaata shacabka inuu hadlo suurab u hadlo Radio Hargeysa berigii la aasaasay 41 ilaa xornimada laga qaado Radio Hargeysa dadka wacyi gelin bay u sameyn jirtay in xorriyad la qaato laga xoroobo Ingiriis iyadoo Ingiriis sameeyay marka Somaliland waxay macruuf ku tahay poem gabay waxay macruuf ku tahay abwaan waxay macruuf ku tahay heesaaye Radio Hargeysa waxa kamid ahaa raadiyowgii ugu horeeyay xorriyadda laga jeediyo ahaa oo waxa ka jeediyay ka nasiib ka nasaar Abdullahi Sultan Timcadde haddaan ilaaho Radio Hargeysa raggii ka shaqayn jiraan ka hadlayaa iyo waxay soo qabteen iyo house the journalism informationka Minister Information of Somaliland de wax halka aan ku soo koobi karo male waa taqaaniin fanaaniinta taariikhda waa taqaaniin Hadraawi iyo Cabdiqays ugu yar waa taqaaniin marka waxaan u sheegayaa shacabka Somaliland waxa mar walba qaar soo geliyaan Siyaad Barre airportka Hargeysa furay okay Siyaad Barre ani sheegaya Siyaad Barre qori kama taagin Hargeysa orientation u yar kama dhisin theater Hargeysa ma dhisin Siyaad Barre airportka Hargeysa ma dhisin Siyaad Barre
aerobortka ee ruushka dhisay ee degada berbera siyaad bar ma dhisin waagii ingiriisku dhisnaa ruushka wuu weynayay aerobortka hargeysa siyaad bar ma dhisin ingiriisa dhis hal wasaaradood uu siyaad bare hargeysa u dhisay male waxaa ugu yaroo muqdisho xaafad walbuu ka dhisay orientation siyaad bare dhisay male iskuol uu siyaad bare hargeysa ka dhisay male jaamacad uu ka dhisay male jaamacadda amuud waagii ingiriiska jirtay iskuolka sheekh wuxuu jiray waagii ingiriiska marka waxaan nii sheegayaa reer somaliland rabaa inaan taariikhda nigu celiyo siyaad bare waa ninkii diiday in daar laba dabaq hargeysa laga dhiso oo dhowsiismi waa lama dhisi karo oo diiday inay muqdisho hormarto diiday in hargeysa daar laga dhiso oo hal dabaq le hargeysa kama dhisnayn iyadoo saatuu siyaad bare tiyaatarkii burburiyey masaajidyadii burburiyey guryihii dadka burburiyey wax walba diginta ka dhigay eeraboorka burburiyey wax walba burburiyey radio hargeysa burburiyey meel uu burburin miyi iyo magaalo maleh dhulkuu ka tagayna wada bam buu ku duugay waana laga saara marka somaliland historical waxay ku tahay ingiriis xataa way ka diideen wax dhis reer somaliland they are proud to be somaliland iyagaa wax dhistay iyagaa xornimadooda la soo noqday iyagaa wadankii kusoo celiyey radio hargeysa iyagaa kordhiyey istidmaarka hargeysa iyagaa daaro 5 dabaq 7 dabaq ka dhisay muraayada ah iyagaa maanta DP World heshiis la galay marka waxaan nii sheegayaa waxaan rabaa maanta inaan hambalyad u diro aan ilaaho hanaankii qarannimo waad ku taagan tahay Muuse Biixi meesha ugu horeysay uu soo ziyaartay waxa waaye meel qaali ah meel taariikh ah radio hargeysa oo 75 years jirta informationka is most important place dadka la wareegayo coldoon baa la xiray dadka la wareegayo waxaa la xiray inan yaray hadda maalin walba ka hadlaan nicmo oo la yiri muqdisho ka hadashay kan dawladda waxay dawlad ku tahay inay cadaalad iyo maxkamad baa jirto maxkamad baa la saaray maxkamad baa xukuntay wax la buunbuuniyo ma Facebook maanta waxay buunbuuninayaan Morgan on garanayno wuxuu yahay waxaan raacinayaa taariikhda Morgan ninka aad leeyihiin waa generaal Morgan wuxuu ahaa askari dabla ah siyaad bare ilaaliyo oo siyaad bare daba ordo oo taariikhdii muqdisho ku bilaabatay inuu toogtay nin darbi ranji marinay nin jareero ranji marinay korocha dalsood siyaad bare hoos maraya buraashka ka soo dhacay wuu toogtay ba jidku dadku ku dili jiray muqdisho wuxuu guursaday inantii siyaad bare isku ilaalinayay nin ma jeerteen oo ahaa oo lixid uu lahaa uu guursaday inantii siyaad bare markuu guursaday ayaa bug isla markii waxa laga dhigay cornel kadib waxa laga dhigay general marka waa wiil inan layaal general weeyaan inan layaal maana general ma waxa uu hargeysa ka geystay dagaalka ka kacayna waxay ahayd inuu hargeysa la soo galay fusuuq inuu la soo galay modelan subinaya hablaha xusho inuu hablaha xoog ku fuulo xoog ku kufsado ay SNM-na ka kacday ee asoo cagcad hargeysa laga saaray maanta marka waxa la hadlayaa reer Puntland waa la yaabanahay iyo Soomaaliya reer Puntland waxay leeyihiin Morgan baa madaxweynenimo isku soo sharaxay the international community Morgan way taqaana Morgan makaankiisu madaxweynenimo ma Morgan waa mujrim makaankiisu waxa weeye jail in la geeyo international community looga dacwoodo yuhuudda ikhtiyaaraad badan bay soo bisay ragii Jarmalka iyo Swisskii meel u baxsatay dawladda Somaliland waa inay isku takhluujisaa dhiigeenu biyo maaha Morgan waa in meel allaale meeshu joogo lagu dilaa hadday muqdisho tahay hadday Puntland tahay hadday wax walba tahay nabad sugidda Somaliland iyo sirdoonka Somaliland ay doonaan informationkii helaan rag loo diraa commandos ah la dilaa laga argoosta taasi waa midaan soo jeedin mid kale aan soo jeedinayo nimca la xiray iyo waxa laga hadlay dawlad hore u socota dawladda Somaliland maanta waxay gaartay heer sare hadduu maanta tagay minister of finance waa waxaan aad iyo aad ugu farxay arrinka uu maanta bilaabay uu sameeyey Muuse Biixi waa meel taariikhi ah waa meel taariikhdii jiritaanka Somaliland ah waa meel xorriyadda looga dagaalamay meediyada iyo waxaan iyo wax radio jiray wax television jiray radio Hargeysa ka horeeyay wax Soomaali ku hadlo radio Hargeysa ka horeeyay marka waxaan rabaa inaan nii soo sheego radio Hargeysa waxaa la aasaasay 1941 77 sano ku jirtaa dhalinyarada ogaadaan dawladda UK aasaastay oo Somaliland waaga waxay Somaliland British Protector radio Hargeysa
waxaa la dumiyey 1988 dowladdii kale taliyaha ee mujrimkii Siyaad Barre ayaa dumiyey. waxaa dib u kiciyey dowladdii Somaliland ee 1991 markii xorriyadda lala soo laabtay lala soo noqday. waxaan dhammaan laga dhageystaa bariga Afrika iyo wadamada bariga dhexe. waxaana ka baxa 4 luqadood oo af Somali, English, Amharic iyo Arabic. So we are a country that is got a history. We have our own history. We have our own culture. waxaan leeyahay jaamacadda beeraha ee Camuud oo aad garanaysiin. waxaan leeyahay iskuulkii sheekh oo macallimiin badan ka soo baxday oo dad badan wax ka soo bartay. Xaaji Baxnaan ay ka mid yihiin, Lixle Xasan Keed ka mid yihiin, rag badan Cabdiraxmaan Tuur ka mid yihiin. markaana waxay aadi jireen Cambridge University, dad wax bartay ahaayeen, saraakiil bay ahaayeen, Oxford bay ka soo baxeen, dad cilmi leh ahaayeen. maanta waxaan aad ugu farxay radio Hargeysa waxa ka hadlayo oo ka shaqeeyo technical iyo programmatic information iyo heesaba geesaha geeska Africa iyo dhalinyaro badan oo raadiyaha ka shaqeyso madaxweynaha la kulmay, arrimahoodu ka hadlay, dhibaatooyinkoodu ka hadlay. waa step by step way socotaa. Muuse Bixi waxaa leeyahay waad guuleysatay. hanaanka qarannimo ee Somaliland maanta wuu rumoobay. hanaanka qarannimo ee Somaliland maanta wuu rumoobay. hanaanka qarannimada Somaliland maanta wuu rumoobay. hanaanka qarannimada Soomaaliya maanta wuu rumoobay. inaga daaya garxajiis, inaga daaya hawar asweer awal, inaga daaya waxa. we are Somaliland. we are a globalization. waxaanu nahay modern country. waxaanu nahay the first country in East Africa of democratic of one man vote. hasta la victoria sempre qaqayaasha. Muuse Bixi waan soo dhaweeyay kormeerkii ku tagay wasaaradda warfaafinta. waxaa kaloo la doonayaa inaad kormeertid wasaaradda beeraha, u sheegtid inay beero sameeyaan. waxaa kaloo la doonayaa wasaaradda kalluumaysiga inaad tagtid. wax soo saarka iyo wacyigelintana radio Hargeysa waa inay aad uga hadashaa. waxaan kale Muqdisho aadayay fanaaniinta iyo waxaana sharciga hala mariyo. ninkii maanta Muqdisho raba inuu ka yimaado Hargeysa dumiyo waan ka soo horjeedaa. inan taayar waa edeb 3 sano waa wax yar way dhamaanaysaa inay kuwana qaadato ay edeb ku yeelataa loo baahan yahay. hasta la victoria sempre qaqayash ma salaam.